kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay waryaaya wayga su'aale odagii daldalmaayo sida caadka daruurtiyo roob xagaaye da'ay durba ma iska qayooday su'aasha aan kaaga jawaabay qof kastoo degdegaa dabka waa ku dhacaa hedda mankaa jug la siiyey anagoo da'leeda karhaw darin hooba gubita dariska dhibaase dabkuus weedada ahna deernay war abaan hadraawiye horey wuxuu yidhi danunac bukay laqeen dalkay wax ku eegayaan war horaa loo yidhi damacaga hadduu bato indhuhu kaa ridaa aniguna aan ku sii darsadeehow daryeelkii ma diyaarisiin dadkaynii daalay hadeege daryeelkii ma diyaarisiin dadkaynii daalay hadeege haye abdulla widaaye inus murjiidoy eel shidaale walakiin bujye afartaada tergoola iska dhaansee bulsha nabad qabta habka beretanka baasaha fakhriga sida looga baxo ku ballami karto boqolkiiba boqol ayagoo bad qaba qarankooda bilan baa allah qabtee baranaya dagaal bahdu kala qabto buntuq caaradii lagu kala baxaa baana allow war goormaa buntuq noogu dambaysay carruurtiibaa bumba laga dhigtaa hadde bilaayo moosaw bilow ow rahmaangana badbaadihe mad isaaqow mahmaahiyadaas horaan kaaga maqlo waxaa tidhi biyow warkaaga buuraa ki dheegay warnimay anugu waxaan la yaabay wasiir maareeye wuxuu yidhi guddiyaan magacaawnay wax soo saarka dalka dibadda u suuqgeeya marka waa su'aale soo saarka iyo suuqgeynta horta tee horraysa midda kale dunida wax loo suuqgeynaya dalalka wax loo suuqgeynaya nooma sheegin war Soomaaliland kow ka ah war sun ha lagu qasee Soomaaliya oo dhan NGO noqotay qof walbaaba wuxuu rabo iska sheegayo war adeerow heestaas wasiir maareeye ma samayn wasiir beela sameeyey waxayna ahayd adaa mooga hurdee Soomaaliya waa mashruuc war sidaas ma hayna heestu waxay ahayd roonow rabbiyow raxmaanow soomaalida u roonow allow yaan lagugu cunin abdulla codkan quruxda badan leh war ma haysiine wasiiradii siilaaye qaar ka mid ah xamar joogo war adeerow kuwii muuse biixi caawa ayagaa ka dambeeyey war kuwii siilaayaa marka hore xil raba oo yimid kuwa muuse biixina marka xilka laga qaado ayay imanayaan war mas-uuliinta Soomaaliland kuwa xagga jooga marka xilka laga qaado muqdisho ay imaanayaan kuwa muqdisho jooga marka xilka laga qaado xagga aadayaan kala wareeg ma lagu bilaabeen war taasi waxay dan u tahay siyaasiyiinta anoo kale oo boos cariirsiga warnimayo waranani haya wasiirka gaashaandhigga masar amar dambe barigii la magacaabay wuxuu tagay wasaaradda gaashaandhigga iridda markuu ka galay buu wuxuu arkay sawirka jenaraal daawud cabdilla xirsi kadibna markuu xafiiska fadhiistay oo biyo u cabay ayuu wuxuu yidhi jenaraalka aadka u labisan ee iridda ku sawiran halagu cuudha markaasaa waxaa la yidhi wasiir ninkaas waa jenaraal daa'uud laftirkiisa halagu yeeruu yidhi warniya markaas waxaan ku soo xasuustay ayaa hore wariye farxaan la yidhaahdo waxaa la yidhi gudoomiyaha gobolka maxmed dheera shijirayd qabanayeen keen difutiriso inta soo wuxuu yidhi halii ogaado shijirayd gudoomiyaha gobolka maxmed dheera qabanayeen u socdaay warnimay warkiina waxaan u fahmay wasiiro iyo wareeyaal aan shalay ogeyn baa shaqaynaya war reer kalamaana waana siin dardaarame runshaag eebshaag walaari ino warkin badlo mayka obsideey habsiga lisiinka aruuri oo koroneel shuutana suuratul maa'ida siinka kor akriye madasa warjara xaadka qosle quraan in korka layga saaro ana ayaanta u oomane war haddaad quraan saar rabtid mawlaca korneel shuuta aad hal uu dul akriye arigeeya aan tahliilka soo qaadhe warnimayo madaxweyne qaatumo jenaraal cali khalif galayr intee buu ka baxa war yuusuf cali samatar weydii war asagoo muuse bixi silaanya ku dacweynaya igu war dambaysa ninkaas war madaxweynaha Soomaaliya waa ka soo laabtay Addis Ababa Yoweri Museveni inuu na soo kulmaa la yiri marka waxaan la yaabanahay Yoweri Museveni shalay Soomaaliya dawlad maaha waa kii dhahayay madaxweynuhu arrinta ma kala hadlayo ninyahow roadmapkii hore kugu dul qaadanayna dulmiga jooji ma yiri war madaxweynaha midowga Afrika farmaajo looma dooran madaxweynaha Masar jenaraal al-Sisi baa loo doortay yaa Sisi ma waysan ahayn tiisan caagteera ku tiilashay maamul goboleed loo aqoonsaday madaxweyne yeelatay war madaxweynaha Masar hadduu loo madaxweyne loo doortay madaxweynayaashu waxarnaa Muuse Sidaaye
warnimay aanu waxaan la yaabanahay dawladdeenu maxay uga aamusan tahay arrinta Venezuela warya dogonka gano masaar maadi mooradii la koodo mooradayna oolase wasiirka arrimaha dibadda in sheeg warkaas war wasaaradda arrimaha dibadda waa tii waraaqadaha isdaba joogga soo saari jirtay ayaantan habacsanaanta gashay waa maxay Venezuela loo yaacayaa wareer waxaan malaynay deegaanka batay warnimada madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Xaaf wuxuu faragelin ku sameeyay la yiri doorashada Nigeria war ra'iisul wasaare Shaakir miyuu Nigeria madaxweyne uga dhigi rabaa war qaniya ka fujisaa leeydi hadii faragelin laga dayn waayay Afrika inuu farageliyo xaq u leeyahay yaa taas aad ka sheegaysin madaxweyne waaraba wuxuu farageliyay Burundi wuxuuna yiri ciidamada Burundi ma bixi karaan ay koon nabad ka dhigin shabeellada dhexe war madaxweynaha koonfur galbeed markuu qaramada madoow farageli waa tii ay Soomaaliya laga qaaday warya wal mooshiidin madawiiri lafta gareen oboro Mansuur Suwahan dhina isku nagaday ma faragalan waa faragashay antii Ingiliisana war Axmed Madoow markuu farageliyay Soomaali galbeed waa tii Cabdi Ilaahay xabsiga la dhigay qalab dhigaxna la soo daayay agsharna cirka laga soo riday aryaadaha anigu xala waxaan ku riyooday Soomaaliyo midnimo taam oo barwaaqa gaartay warada riyada guluuda lama arkay anigu waxaan ku riyooday Soomaaliland gooni u taagan oo اعتراف caalami heshay riyadeeduna waa muqaddis warnimayow labadan riyayay saakiina baabiina kala badbaadsada ana bariyo dhaxow iga daba riyoha isagu haddaan eegno rugtay furan yihiin reerihi iyo beeshu ratigawana qurbac riimayo geeli laga reebay ayaa roobadii saaran tahay dheelina u raran raaleyda waa ka suusiday rug hoobaliku guuri oo dhoole ee lanka tabay rabbow rahmaanow riidi oo dhooleynin kuweeloy waxa u dhahay jira saaxiibkay beeni raad male beeni raad male liila la run mamoda taga bannaan xil doonkii fursad baan u hayaa war cadaalad darada jagadaas 4.5 kum soo xulismiya horta jagadu maxay tahay maadhaad intaada foorka ku ordin feeruhu ha ku jabaan war haday madaxweyne tahay anaa u taagan aniga wasiirada hal layga dhigo anigana xildhibaan ku xigeen hal layga dhigo gudoomiye bangiyo muslima hadii la rabo aniga layga dhigo war aniga jagadaas ma qaane madaxa qaban qaawada xalfadaha nabad in la dhigo anigu xalfad xil leeyraada waligay ma arkin maandhaw xageed ka keentay ya xaadu la yaabay Gmail waa leeyahay dad waalanaati caashiqiin yaa idin la taraaraxay jagadu waxay taa ma taqaanin wasiirka qurba joogtu waa boos naga bannaan dawladaha kalena waa leeyihiin oo dadkoodu tahriibeen sidanoo kale ra'iisul wasaaruhu ma ogaa inay bannaan tahay jagadaasu naga tag waana wareerisay jagadaas qonta saranin qurbaha joogayoo timihii ka bideen ay u baahan tahay war wasaaradaha midba qabiil ah loo waardiyeystee wasaaradda qurba joogta yaa yeelan doona talow waliyo jagadaha Soomaaliland la siiyo ayada dadkeedu bari hore qurbaha tageenay Soomaaliland oo baatin jagadaas la siinsiye laakiin shuruudo may laptop garabkan ka jira madiyayna tin haliinto lanka aragaan aaqa jacleena galanta ka hayso okiyaala midowna fulol siinka fade suudna ka jar wiliba af ingiriisiga ka hadalaw hawya waxa aaqa qada jaclaa qoyaanku ugu jiro kurburada leere wariya qorax joogti wasiir xaq uma lahan miya wariya wasaaradda haweenka ba hadii la sameeyay wasaaradda ragga maxaa loo sameeyay waay soo cadaalad darro maaha war ma haysin jubada hoos cirka looga soo dhacay amiirna waaweyn waxa la meesha waa ku baxeen qaraxyo badan waa la qabtaa oo la diyaariyay aryaa qarax iyo amiir dhinta nuguma cusbay wax kale ama haysa qandha calool weyn qaaday war gudoomiyaha gobolka Banaadir waay waxa burburiyay guriga la sheegay in sharci darro ahaayeen oo kaaraan ku yaala wariya wixii sharci darro in la burburiyo waa isaalaan wixii sharciyan la dhaafay yaa dood ka qaba aryaa Soomaalida qof walba waxa uu rabaa sharciga ma taqaanin horta Soomaalida inta cadaalad rabtay inta cadaalad darrada rabtay yaa badan war ka baxa madag oo cadaanka u boodaniyo war horta guriga islaamad bin ayada yaa soo tiro